shirkii ka dhacay magaalada London British Museum ee laga hadlayay maalgelinta iyo dhiirigelinta dhaqaalaha dalka Soomaaliya ayna ka qayb galeen maalqabeennada ama ganacsatada shaqeeyaha iyo kuwa Soomaalida dadkii ka qayb galay waxa kamid ahaa kambaniga Daawus waxaanu fursad u helay inaan wareysi la yeelano gudoomiye ku-xigeenka kambaniga Daawus oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cusmaan Xaaji Yuusuf Cabdiraxmaan waxaad nooga warantaa shirkii ay ku martiqaaday idinka shirka waxaa nagu martiqaaday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska khaasatan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska sababihii la idin martiqaaday maxay ahaayeen baad isleedahay Daawus waa company lagu abuuray Mareykanka oo haddana wax qabad weyn ka haya wadanka Soomaaliya waxaan laga codsaday in aan ka hadalno companyga iyo wax qabadkiisa iyo alaabaha uu soo saaro sida Nuuna iyo Bilan waxaan ahayn company kaliya oo meesha bandhig ku sameeyay Nuuna iyo Bilan maxay yihiin Nuuna waa xafaayada ilmaha yarka ah Bilanna waa suufka dumarka shirka markaad ka hadlayseen maxaad soo jeediseen oo aad shirka ka muujiseen ama dawlad ha noqoto ama shacabka Soomaaliyeed ha noqoto oo aad ka qayb gasheen shirka waxay ugu weynaa oo aan ka sheegno waxay ahayd in aan jecelnahay in aan maalgelin ilaa iyo 10 milyan aan ku sameyn doono Horn of Africa oo aan sameyn doono warshad soo saarta alaabaha noocaas oo ugu talagayso warshada inaad ka sameysaan Horn of Africa hadda aan jecelnahay siiba Soomaaliya maxay marka awoodda warshada wax soo saarkeedu intee dheeyay maalin ama bil ama wax soo saarku intee dheeyay hadda wax soo saarkeenu wuxuu gaarsiisan yahay bishii waxaan soo saari karnaa alaab ilaa iyo 100 container ah aan soo saari karnaa suuq xagee geysaan ilaa hadda ilaa hadda shirkadda waxay alaabaheeda taala wadanka Mareykanka iyo Horn of Africa oo ay kamid tahay Soomaaliya iyo dawladaha kale oo Ethiopia iyo Kenya iyo intii galbeedka Africa marka shirkii markaad qiimaysid ma idin dhiirigeliyay ujeedada laga lahaasay shirka ma laga gaaray baad isleedahay kullaba waxaan u aragnay shirka in uu yahay shir horumarkii shirkadihii Soomaaliya rabay inay lacag galiyaan lagu soo martiqaaday ayna ma aragtay meesha ay ka muuqatay in Soomaaliya aad loo jecel yahay in ma aragtay dadkii shirkadahaas in investment ay galiyaan oo horumar ay keenaan shirkadaha dhexdooda iyo dawladda Soomaaliyeed midna ma la kulanteen intii shirka ay joogteen fiiradana ma is dhaafsateen ka baxsan shirka aad iyo aad wixii company ah oo yimid maadaama ay u badnaayeen NGO waan wada hadalnay wufuudii timidna aad bay noo soo dhaweeyeen mahadsanid aad badan